cadhadu ama xanaaqa waxaa la yiraahdaa waa waali yar. xanaaqa waa xaalad dareen shucuureed aad u daran oo ku lug leh jawaab adag, raaxo la'aan, marmarka qaar jawaab celin la'aan, hanjawaad iyo dhaawac jireed ama dhaawac maskaxeed. qofka xanaaqa ama cadhada la kulma badanaa wuxuu la kulmi doonaa saameyn jireed sida garaaca wadnaha oo kordha, cadaadiska dhiigga oo sareeya, iyo heerarka oo kor u kaca ee adrenaline iyo noradrenaline. haddaba daawada inoo isku aragtaa in badan cadho degdeg ah marka xanaaqaaga aad u kaco, awood isxakamaynta ma kaa tagtaa, kadib qaladkaaga iyo wax walba xanaaqaaga sababay ma ka qoomamaysaa. haddaba haddii aad xal u weysay xanaaqaaga badan, aniga ayaa xal kuu sheegaya cadhada badan iyo sida liskaga xakameeyo loona daweeyo. waxaan ahay Jaabir Cusmaan JB. si aad wax walba muhiim ah naaga faa'iido, fadlan nagu soo bir YouTube-kan Xigmaso, subscribe saaro muuqaalkan haddii aad ka hesho like saar si uu dad badan u gaaro. haddana ku soo dhawow muuqaalkeena maanta. ugu horeyn intaan xalka kula wadaagin, waxaan kula wadaagayaa dhibta iyo halista ay leedahay cadhada badan. xanaaqa badan waxay u horseedi kartaa waxyaabo badan jir ahaan iyo maskax ahaanba. todoba waxyeelood saameynta ay cadhadu ama xanaaqa u leedahay caafimaadkaaga. midda koowaad, wadna xanuun. wadnuhu waa xubinta ugu badan ee ay saamayso cadhada, sababta oo xanaaqa badan wuxuu kordhin karaa garaaca wadnaha wax ka badan xadkii caadiga ahaa. marka cadhadu sii socoto, garaaca wadnuhu wuu kordhi doonaa, taas oo keeni karta wadna xanuun. midda labaad, hurdo xumi. marka aad cadhooto, hormoonada jirkaaga ayaa isbedela, taas oo keenta dhibaatooyinka hurdada. haddii aadan helin nasasho kugu filan, waxaad u nugushahay cudurro badan. dhinaca kale, hurdo la'aanta iyo helid la'aanta saacado kugu filan oo hurdo fiican oo tayo leh waxay keeni kartaa hoos u dhaca awoodda wax soo saarista. midda saddexaad, dhiigkarka. mid ka mid ah waxyeelada cadhada u leedahay caafimaadka waa dhiigkarka. marka qofka uu la kulmo cadho ama walbahaar, wadnuhu wuxuu soo shibaa dhiig badan, kaas oo ku abuura culays aan caadi ahayn oo xad-dhaaf ah xididada dhiigga. natiijo ahaan uu ku qaadi karo cudurrada wadnaha ee uu keeno dhiigkarka ayaa kordhi kara. midda afaraad, dhibaatooyinka neefsashada. dadka qaba xaaladda neefmareenka sida neefta si fudud uma neefsan karaan markay xanaaqaan. tani waxay si xun u saameyn kartaa caafimaadkooda, waxay khatar gelin kartaa neefta. midda shanaad, madax xanuun. xanaaqa wuxuu kordhiyaa ballaarinta xididaha dhiigga ee madaxa, wuxuu kordhiyaa socodka dhiigga, taas oo keeni karta madax xanuun daran. midda lixaad, faaliga. istarooggu wuxuu dhacaa marka xididaha dhiigga ee maskaxda dilaacdo oo gooya bixinta dhiigga qayb ka mid ah maskaxda. tani waxay sii kordhin kartaa xaalada naadir ah oo xanaaqa badan. midda ugu dambaysa, saamaynta xun ee maqaarka. marka aad dareento diiqad ama xanaaq, jirkaaga wuxuu sii daayaa kortisool oo ay la socdaan hormoono kale oo kordhiya soo saarista saliidda maqaarka ugu soo baxa qaabka finanka, waxayna fududeeyaan dhexgalka xasaasiyadda maqaarka sida caabuqa maqaarka. diinteena suuban ee islaamka sidee bay wax ugu qabatay xalna ugu heshay dhibaatada cadhada badan ee bini'aadamka? daawada ugu weyn ee diinteena suuban islaamka na farayso goorta aan caroono ama xanaaqno ayaa ah in aan acuudu bilaysano. marka ugu horeysaba anagoo kelimad kale oranba aan dhahno acuudu billaahi min ashaydaani arajiim. rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa maalin saxaabi u yimid, kadib wuxuu ku yidhi rasuulkii allow ii dardaaran. markaasuu nebiga sallallahu calayhi wasallam ku yidhi laa taqdab, ha caroonin. markaasuu saxaabigii mar labaad ku celiyey rasuulka sallallahu calayhi wasallam ii dardaaran, si dardaaran kale loogu daro. markaasuu nebiga sallallahu calayhi wasallam ku celiyey laa taqdab, ha caroonin. 3 jeer ayuu dalbaday saxaabigii in nebiga sallallahu calayhi wasallam dardaaranka usii kordhiyo. markaasuu nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku celcelinayay laa taqdab, ha caroonin. rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu ammaanay qofka marka uu caroodo ka adag naftiisa xakameeya, wuxuuna yidhi laysa alshadiidu bisurca, inama ashadiidu alladii yamliku nafsahu cinda alqadab. ninka adag ma aha kan dadka legda, balse kan adag waa kan naftiisa xakameeya marka uu caroodo. allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka in badan wuxuu ku ammaanay addoommada mu'miniinta oo xakameeya caradooda kadibna iska cafiya dadka. qaala allahu tacaala waalkaadimiina alqayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi kuwa iska xijiya oo xakameeya caradooda kadibna iska cafiya dadka, eebana wuu jecel yahay samafalayaasha. qaala allahu tacaala waaladiina yajtanibuuna kabaa'ira alithma waalfawaaxish waidaa maa qadabuuhum yakfiruun. aayadan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ammaanay addoommada mu'miniinta dabeecadooda ah marka ay caroodaan inay caradooda xakameeyaan kadibna ay iska cafiyaan dadka. haddaba halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa talooyin rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam na siiyey looguna baahan yahay qof walba marka uu caroodo inuu sameeyo. xalka koowaad, qofka si adag u carooda intuu ficil iyo erayo xun ku hadli lahaa ugu horeyn inuu acuudu bilaysto dhowr jeer. hadhaho acuudu billaahi min ashaydaani arajiim, maxaa yeelay sharta furaheeda waa carada ama xanaaq. xalka labaad, aamus oo hadlin markaad carooto. rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu ku booriyey qofka cadhooda inuu iska aamuso oo uu hadalka joojiyo
si uu carada sabab ugu naqan wax xaaraanta ah. xalka saddexaad, bedel muuqaalkaaga iyo xaaladaada. rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuuna faray qofka xanaaqsan inuu bedelo booska uu joogo markuu xanaaqo. haddii caro kuugu dhacdo adigoo taagan waa inaad fariisataa. hadduu xanaaqa kaa tegi waayo waa inaad seexataa. xalka afaraad, inuu weyse qaataa qofka. rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku booriyey qofka haddii uu caroodo inuu weysaysto laba arrimood dartood. midda koowaad waa in naftiisa uu ku mashquulo. midda labaad waa in la damiyo kuleelka cadhada maadaama ay adimada iyo cidhifyada yihiin kuwa kulul oo biyo lagu qaboojiyo. xalka ugu dambeeyo, xalka shanaad, xasuusnow abaalgudka weyn xijinta carada iyo dareemidda cabsida Allah subxaanahu wa tacaala. qofka xanaaqsan waxaa la gudboon inuu xasuusto abaalka weyn ee loo diyaariyey haddii uu xanaaqa ama carada iska xakameeyo. waxaa ka mid ah abaalgudka, fadliga uu leeyahay iyo abaalgudka loo diyaariyey qofka xakameeya caradiisa. isagoo nabiga sallallahu calayhi wasallam ka hadlaya wuxuu yidhi: man kadama qaydan wahuwa qaadirun calaa an yanfadahu dacaahu allahu calaa ru'uusi alqalaa'iq xataa yugayirahu min xuuri lciin. qofkii caradiisa xakameeya oo qarya isagoo awooda inuu fuliyo, allah subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaame qalaa'iqda hortooda ayuu ugu yeerayaa si uu u dooransiiyo qofkaas xuurulciin. wuxuu allah subxaanahu wa tacaala u guurinayaa xuurulciin intuu doono. ugu dambeyn, haddii aad halkan nala soo gaartay aad u mahadsan tahay. haddii aad ka heshay muuqaalkan, like saar si uu dad badan u gaaro. la wadaag asxaabtaadoo sheer u dheh. intaan muuqaalkan lacina ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo horumar.